Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu walaalaha garbahayga oo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada aniga waxaan ahay Xafsa youtube-ka naga daawanaysan waa Xafsa channel ala barnaamijkan waxaa idin soo gudbisa islaaniga walaashin Xafsayd soo dhawaada meel walba joogtaan waxaan Allah subxaanahu wa tacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suuban Allah idin siiyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan aniga waan fiicanahay alxamdulillaah waxaa inoo socday kitaabkeeni taxanaha ahaa ee la magac baxay baro boqol xadiis hase yeeshee intaan u gudgalin darsigeeni caawa ugu horreyn haddii ay tahay markuu u horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar haddii aad hore noo joogto like saar u share garee asxaabtaada nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga insha Allah kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeeni 45aad biidnillah bismillah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه رواه المسلم النبي نبتقلين حريص كركي ساعتي وحدهاي لا يدخل الجنة قفنا جنة مقليو من لا يأمن جاره يقفك أن كأمان هرين درس كيسا dhibkiisa bawaa'iqahu dhibkiisa aan ka amaan helin carabkiisa aflagaadadiisa aan ka amaan helin jannada ma galayo man laa ya'mana jaarahu bawaa'iqahu qofna jannada ma galayso qofki aan ka amaan helin dariskiisa dhibkiisa dariska xuquuq badan ayuu leeyahay nabiga in badan ayuu ka hadlay oo ka dardaarmay dariska xaq dhowr fara badan ayuu leeyahay wuxuu dhahay nabiga xadiis kale ku hadlay inay isdhaxlayaan ayaan u maleeyay oo dhahay nabiga maantana dadka qaar gobol ka mid ah waxay sameeyaan family dhan amba qoys dhan amba dadka ceebahooda dhanba inay soo bandhigaan amba bani'aadinka amba familiga noloshooda dhanba inay public ka soo dhigaan meel lasoo fadhiistaan shaqadooda dhanba intaas waaye yacni skill kale ma lahan xirfad kale ma lahan laakiin waxay xirfad u leeyihiin dadkan ceebahooda noloshooda khaaska private ku ah inay maanta dhan soo bandhigaan oo social media dhex wareejiyaan taas xuquuqda dariska miyay ka mid tahay xuquuqda dariska mid aha dariskaaga kama amaan helina carabkaada kama amaan helin dhibkaada maadan ka badbaadinin dabcan xuquuqda dariska uu leeyahay dadka qaari ma oga laano hadday ogaan lahaayeen waxa maanta dhacayo maysan sameeyeen waxa maanta ay sameynayaan ma sameeyeen insha Allah kusii dheeraan maayo xadiiskan gabigiiba wuxuu ka hadlayaa nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu dhahay qofna jannada ma galayso cidna jannada ma galayso qofkii aan ka amaan helin dariskiisa insha Allah rabbi subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwii dariskooda xaq dhowray dhibaatooyinkooda ka badbaadiyay aflagaadooda ka ilaaliya carabkooda ka ilaaliya Allah naga dhigo oo xaq dhowra Allah naga dhigo waajibaadka dariska gutana Allah subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo insha Allah usii share gareeya asxaabtiina si dad badan uga faa'iideystaan insha Allah guud ahaan halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawashada muuqaalka iyaga waad ku mahadsantahay haddii aad subscribe saarto sidoo kale ha ilaawin inaad si like gareyso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh